السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام الدعوة ديال كسر دوادة حاجة أكاديمي. هل كان بيني الكريم وحعاون نقبل لوضع أبليكيشن كني أنا راجو بالنسانين يعني بدنا صبر متجري صار دقي برت فيسبوك كلنا يوتيوب. إن بلاد دونا أبليكيشن كان لقى دوبل ستريتر. رنا نوصل بحنا أبليكيشن كني وراء فوتوشوب. طبعا هل كان إحنا نقبل لوضع الكورس حسب بيني الكريم. كورس كاس أو أنا كنت تسيس هل كان نقول وذا قدونا بيني الكريم. هذا كورس كان باللابنا يا حسوسنا كود دافين. عشرة ناس أسبوع سوق جدونا هل كان سيسنا كود دافين. هذا واحد يجيب بهاي أنا السنة كان سبسكرايب سارته. جنبنا كان أطفرته. نالك أول اللي نواتو حان سوق جدونا بيني الكريم. هذا واحد كله كورس كان ونوب باللابنا دونا. إحنا قاعد دونا وأنا سيف عنو كلا اللي جدونا أبليكيشن كنا. Adobe Illustrator marka soo dhawaada markana soo dhawaada halkan markana soo dhawaynaa daawadayaal halkan waa Haga Academy insha Allah binal cream koorsada aan qaadan doono magaceeda waxa loo yaqaan graphic design oo course name-ka application ka hadda noo socdo oo halkan caawa ku nagu bilaaban doona binal cream taariikhdan ay tahay sidaan filayo waxa xilliga noo bilaaban doona Adobe Illustrator weeyaan waxaan ugu xigi doonaa teacherka magaca noo dhigi doona casharkan waa anigoo ah engineer Shaadiri ama Abubakar Cabdikariim Xuseen methodka aan bari doona waa practice with voice and explanation intaba wata ayaan soo mari doonaa inaan practice soo barino codayo la socdo sidoo kalena ay sharxaad la socoto waxaan ka daawan doontaa binal cream YouTube channel-ka loo yaqaan Haga Academy haddii aad Facebook page aad ka daawato baahantan wax ka daawan doontaa Haga Academy Real intaas course kana content-ka ka kooban yahay waxaan binal cream qaadan doonaa ugu hore introduction kan caawa ku jirno waxaan ugu xigi doonaa introduction kan ugu xiga oo noo bilaaw doona cashar ugu xiga noqon doona installation ka qaabka loo soo dejiyo iyo sidoo kale interface-ka ama Adobe Illustrator interface-kiisa iyo waxyaabaha markaas interface-ka iyo waxyaabo badan aan ku sharaxi doono hal video noo noqon doona binal cream waxaan ugu xigi doonaa tools-ka aan ka gaar doona introduction of tools iyo toolka iyo waxyaabaha la isticmaali doona sida yihiin waxaan ugu xigi doonaa shapes-ka waxaan qaadan doonaa shapes-ka saddexaas qayb boonti aan qaadan doonaa ah combination shapes in laba shape la isu geeyo ama shape la isku daro kadib laga soo saaro waxyaabo ka duwan wixii markaas aad ka filanaysa meeshaas moon shapes waxa loo yaqaano oo iyagana sidoo kale soo in la sameeyo shape kala duwan oo nooc walba shape-ki sawir laga sameey karo wax ka art-ka laga sameey karo iyo infographics oo ah waxyaabaha sida waxyaabaha caadiga ah gacan sameeyska sida digsida qaadooyinka waxyaabaha la midka qof oo kale waxyaabaha noocaas in sameeyo kale waxaan ugu xigtaa waxa loo yaqaan design flags ama ku xigtaa flagiska ama calaamado oo kale qaabka loo sameeyo waxaan ugu xigtaa boards iyo boorarka qaabka saddex qaab aan soo qaadan doonaa electronic board hospital board iyo travel agency board ayaan ugu xigi doonaa casharada ugu xiga ayaan kale ugu xigi doonaa waxa weeyaan waa logos iyo logoings loo sameeyo dhowr qaab oo logooyinka arki doonaa wordmark logo loo yaqaan logo xaraf kaliya lettermark logo oo ah iyaduna logo markaas iyaduna xaraf laakiin kan hore ka duwan iyo combination logo wax dhama ka sameeysan iyo shape mark logo shape kaliya markaas iyaduna waa arki doonaa qaabka loo sameeyo waxaan ugu xigtaa logo documentation iyo soo loo soo bandhiga markaas logadii aad sameeyay aad ugu soo bandhigeed company-ga aad logo u sameeyay markaa aad ugu soo bandhigeeda ugu xigta waxaan ugu xigi doonaa ID card iyo sida loo sameeyo waxaan ugu xigi doonaa business card waxaan ugu xigi doonaa letterhead waxaan ugu xigi doonaa brochure waxyaabaha letterhead-ka iyo brochure-ka waraqaha markaad tagtaan jaamacadaha kala tagida ama qayb meel aad doonayso kala shaqo ka rabto ama company ama xafiis kala tagto waraqaha lagu siiyay ka akhrisato waxyaabaha marka company-ga ku diyaarsan weeyaan business and letterhead-ka warqad madaxda ama markaas qofka head office-ka uu kusoo gudbiyo xogta uu doonayo markaas in loo gudbiyo qaybaha kale shaqaalaha ama waxyaabo kale oo badan loo isticmaali karo waxaan ugu xidhan roll up-ku waxyaabaha markaad soo gasho company-yaasha ama xafiisyada waaweyn ama shirkadaha meesha hore boorka yarka u yaala ee tilmaamaya markaas company-gan waxa uu hayo iyo markaa waxa kale oo markaa lagu soo promotion gareynaya ama la doonayo markaa bulshada in la gaarsiiyo waxaan ugu xidhan wax loo yaqaan social media oo aan laba qayb ka qaadan doono ah Facebook cover iyo Facebook post ayaan ugu xigi doonaa binal cream intaas markaan kusoo qaadano waxaan balcaaw isla arkaynaa wuxuu yahay Adobe Illustrator muxuu yahay Adobe Illustrator waa factor based graphic software
oo software isticmaali doona wax loo yaqaano dee Korean formula ama mathematical formula isticmaali doona oo isticmaalaya inta badan asagu inuu isticmaalo pointers waxyaabaha halka pixel laga isticmaalo Photoshop kan wuxuu isticmaalo pointers isticmaali doona wuxuu markaa pointers ku sameynayaan ama lets you scale down inaad hagaajiso marka ama toosiso ama miisaanto shaqada aad qabanayso markaas dee la Korean scale sidoo kale billboard size data ama mobile screen size ka aad rabto adigu aad ka dhigi doontaa waxyaabaha muhiimka ah waxa creating logos logooyinka lagu sameeyo ama iconada lagu sameeyo waxyaabaha sketcheska gacan samayska typography-ga iyo complex illustration waxyaabaha aad ka weynay markaas boorarkii waxyaabaha kala duwan haddaba Adobe Illustrator maxaa loo isticmaalaa Adobe Illustrator waxaa loo isticmaalaa graphic design application weeyaan graphic designers waxay u isticmaalayaan inay abuuraan factor graphics ama factor images ay abuuraan graphics oo markaa made points ka samaysan ama lines ama shapes ama curves iyagoo lagu salaynayo markaa mathematical formula oo isticmaali doono mathematical halka uu isticmaala pictures wax picture ma isticmaali doono asagu yani wuxuu isticmaali doona wax loo yaqaan mathematical formula oo asagu ma lahan wax picture markaa ma soo bandhigayo therefore sadarti marka can be scale down marka scale waa la hagaajin karaa waa la toosin karaa waa waxyaabo badan lagu sameyn karaa waxyaabo badan markaa asaga lagu jari karaa sidoo kale waxay joojinaysaa taasi image quality waa loo sameyn karaa marka image quality ay yeelanayaan haddaba waxyaabaha kugu soo dhici karo manka ku soo dhici kara waxa kamid ah maxaa ku kala duwan yihiin Illustrator iyo Adobe Korean Photoshop waxay ku kala duwan yihiin ku soo dhici karta haddaba Photoshop is based on pixels wuxuu isticmaalaa pixels ayuu isticmaalaa waa arki doonaa pixels ayuu isticmaalaa halka Illustrator ku isticmaala wax loo yaqaan vectors ama Photoshop wuxuu isticmaalaa raster ayuu isticmaalaa Photoshop is raster based on these pixels isticmaalaa soo abuur imageska halka Photoshop marka loo design gareeyo lagu dhigreeyo marka sawir jiray ama sidoo kale marka lagu abuuro sawir marka lagu abuuro maxaa tii marka factor raster maxay kala yihiin dabcan factor muxuu yahay factorku waa factor file ku waa uu isticmaala mathematical equation ayuu isticmaalaa line ayuu isticmaalaa lines ayuu isticmaalaa curves ayuu isticmaalaa haddaan fiirino mar Photoshop hal mar tagina sida hadda kursigan haddaan soo dhaweeyo yaraado control plus na yaraado fiiri wax dhici doona markaan soo dhaweeyo maxaa aragtaa curves iyo sidoo kale points ay aragtaa ma jirto aragmaysid kursiga hadda maxaa laga dhigay points kala go'an laga dhigay oo pixels oo gadeel points kala go'an waxa laga dhigay dee la Korean mathematical formula isticmaalay xagal leh fiiri halkan ka arkaysa xagalad ka arkaysa marka waxyaabaha kala duwan yihiin waaye okay hagaag marka wuxuu marka si loo soo saaro marka grid ayuu isticmaalaa grid wax kala ma waa wixii kala go'an ku tusinayo kala grid kala aad waxa uu taqaanaa isticmaasho web design okay sida darteed marka ma isticmaalay wax loo yaqaano pixels okay waxa ku soo rasterka oo Photoshop ka rasterka isticmaal raster file ku image built on pixels wax pixels asagu pixel ku dhisan yahay Photoshop pixels ku dhisan yahay raster daartadan soo raster factor ka asaga ma isticmaalay wax loo yaqaano sorry factor ka iyo bis iyo rasterka waxa hadda ku tusay rasterka weeyaan rasterka soo markasta wuxuu isticmaalay wax loo yaqaano pixels oo ah pixel kala go'an oo marka kala duwan oo kala go'an halka hadii hadda aan tagno haddaan soo kicino application keena loo yaqaano Adobe Illustrator aan soo kicino haddaan soo kicino application keena loo yaqaano Adobe Illustrator okay haddaan fiirina marka application loo soo kicinaa baan fiirina bal marka hadda waa soo dhaweynaa hal mar aan soo dhaweynaa asaga markaan soo dhaweyno ma arkayna wax oo deel Korean pixels oo ma arkayna soo dhaweyso ma arkaysid laakiin halka markaan joogno waxa arkaynay hadaan kan soo dhaweyno waxa arkaynay halka markaan marano grid aan arkaynay grid waxyaabahaas loo yaqaan marka waxaan ka hadlay marka hadda ashna ka hadlayna halkan markaan joogno ma isticmaalo wax mathematics ma isticmaalana wisordaad halkan waa ka xuna taas afka nooga dhacay halkan markaan joogno laakiin halkan markaan joogno fiiri halkan markaan joogno maxaa aragtaa halkan hadda disfaan ugu jeedo maxaa aragtaa markaan aad u soo dhaweyno fiiri waxaad arkaysaa lines yar ayaad arkaysaa waxyaabaha marka lama soo saari karo ilaa la isticmaalo mathematical equation dadka formula la isticmaalo maahan hagaag aan socono marka raster iyo factor wuxuu kala yahay marka factor wuxuu isticmaalaa wax loo yaqaano points ama wax loo yaqaano mathematical equations ayuu isticmaalaa waxaana isticmaalaa application ka loo yaqaano Illustrator taas la fahanay rasterna waxa isticmaalaa
dee la kurin photoshop oo wuxuu isticmaalaa pixels ayuu isticmaalaa tiny color squares ayuu isticmaalaa color square and grid quality iyo sidoo kale grid quality gridka waxaad arkayna weeyaan okay waxaa kaloo jira kan wuxuu ka samayn karaa markaas high detailed image aad iyo aad u sareeyo details u sareeyaan ayuu samayn karaa sida photographs oo kale marka pixelka haduu bato oo image pixelskiisu bataan hadhacaysa wax loo yaqaano high quality tayada image ku leeyahay kor u kacaysa it will be okay bay noqon doontaa haddii uu yaraadana voice versi weeyaan oo waa cagsiisa weeyaan marka number of pixelska ku jira image-ka waxay ku xiran yihiin file type marka la isticmaalo hadduu JPEG yahay hadduu GIF yahay hadduu markaas PNG yahay kole dabcan ku aan fahmaysaa ma waa PNG JPEG waxaas kala sawirada ay wata sawiradu meesha ugu dambeeyay ay ku jiraan oo extension weeyaan okay haddaba marka deel ku reeyay muxuu ku shaqeeyaa waxa kamid ah operating system ko isticmaala Windows isticmaali kara Mac isticmaali kara Syria isticmaali kara iyo maca ku ka dambeeyo isticmaali kara waxyaaba marka March 19 sano ka hor la soo daayay oo application la isticmaalo la soo daayay developers iska leh waa deel ku reeyay waa Adobe inki 2020 la soo daayay kii ugu dambeeyay 2026.0 October 2026 9 bilood ka hor written waxa lagu qoray C++ lagu qoray C++ action script ayaa lagu qoray oo lagu isticmaalay ama lagu sameeyo luqadda lagu biltigareeyay ama lagu dhisay waa C# ama C++ and debug okay hadaba waxaan isticmaali doonaa midka ugu habboon oo dabcan dadka dhan heli karaan kombiyuutarada aad ugu fiican oo ah 2019 aad iyo aad ma sareeyo RAM ku isticmaalaya ma sareeyo kulama midba ka dambeeyo waa ka RAM computer ka RAM weynki hore u baahan yahay oo features kale oo dheeri aan ku dara laga yaabaa inta badan maadaama isu ka jira markaan isticmaal doono intii kan isticmaal doono hagaag hadaba habay casharkeeni waxaan filayaa inaad wax badan ka fahanteen halka ayaan ku soo gabagabeynayaa inta